waxaan nahay shirkadda ugu gaadiidka badan leh dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca waqtiga waxaan nahay shirkadda ugu waqtiga dheer leh ee laga bilaabo 4 subaxnimo ilaa 8 habeenimo ka rawaxda waxaan shirkadda kaliya 24 saacadood aan wadada laga waayin taasoo ay sababayso gaarigayga ugu dambeeya markuu baxo 8 habeenimo ilaa 12 amba kowda sii socon karo wadooyinka haday tahay bari iyo galbeed taasoo cadeynaysa in shirkadda aan laga waayin 24 saacadood wadada haddii aan ka eego dhinaca service-ka waxaanu bixinaa 3 adeeg oo kala ah dhinaca alaabta amba parcel-ka oo kala baxda laba qaybood haday tahay alaabta yaryar iyo haday tahay alaabta waaweyn dhinaca labaad waxaanu qaadnaa rakaabka amba adeegida dadka dhinaca saddexaad waxaanu qaadnaa kreynta ingeedka amba gaadiidka gaarka loo kiraysto taasoo ay kala baxayso 3 gaadiid marka loo eego dhinaca gaadiidkayga oo kala baxaya gaadiidka yaryar ee qaada 12 qof iyo gaadiidka inta ka waaweyn hadii loo baahdo iyagu 16 laha iyo nooca iyaga ugu waaweyn oo kaastarka ah oo nooca 30 kursiya gaadiidkayga wuxuu kala baxaa 3 gaadiidka aanu shirkadda u adeegnaa waa gaadiid aad u cusub tayana leh marka laga eego dhinaca wasaaradda gaadiidkana buuxiyo shuruudihii ay soo kordhisay wasaaradda gaadiidku haday tahay BBG-da haday tahay speed limit-ka amba speed governor-ka dhammaan adeegyada ay wasaaradda gaadiidku ay soo kordhisay aan buuxinay marka laga eego dhinaca gaadiidkana wasaaradda gaadiidkana aan buuxino dhammaan shuruudaha looga baahdo dhinaca marka laga eego dadweynaha waxaan nahay shirkadda ugu shaqo abuurka badan leh marka la eegayo shirkadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhinaca gaadiidka ama rakaabka qaada mahadsantii tirada guud ee gaadiidka ka hawlgala shirkadda Sacaada saas sheegtay badalku wasaaradda shuruudaha soo kordhisay weelbiisay tirada guud ala boos baa la qaato darawalaya ka hawlgala shirkadda dhinaca darawalada marka la eegayo waa ku dhawaad 200 oo darawal shaqaalaha xafiisyada marka la eegayo waa ilaa 100 shaqaalaha nidaam noocyada ay shaqeeyaan santarkii joogna ofiskii waa xaruntii nidaamka u shaqeeysan waxa waxaa marka gobolada marka alaab dirayo kale xafiiskii maraya si la qaabilaya xajinteedii iyo geynteedii amaanada labaad siyaabood baan ku qaadnaa qayb waxa weeyaan qaybta dadka noo customer-ka inta badan lagu adeego online-ka kuwaasoo alaabtooda intay soo diraan by online lagu adeego lagu dhamaystiro si online ah iyo qaar la keeno alaab xafiiska la keenayo oo loo diro min boorama amba wajaale ilaa min sanaag amba laasaanood taasoo lagu dirayo taasoo aanu samayno in aan mar walba ka jeekin garayno alaabtaasi halkay marayso macmiilkiina message loo diro markasta haday xafiiska marka ka dhaqaaqayso iyo marka ay gaadho goobtii lagu talagalay labadaba uu helo message amba fariin sheegaysa in alaabtiisii la qaaday iyo in halkii gaadhay marka saddexaad waxaan dirnaa message kale oo ah amba fariin qofkii u sheegaysa in macmiilku ugu talagalay alaabtii gaadhay siyaabahaasaan ugu adeegnaa qaybta alaabta gabadhii bulshooyinka ee Soomaaliland gudahaan ka shaqeysa fariinta dhammaan bulshooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka hore waan salaamayaa salaanka bacdi waxaanu sanadka cusub marka ugu horeeyaan ugu bashaareynayna inaanu soo kordhinay sidii awalba aanu ugu qaadi jirnay inaanu si kasii wanaagsan hadii alla ka dhigo aanu ugu qaadayno taas oo aanu soo kordhinay si online ah rakaabkii loo sii goosan doono hadii alla ka dhigo iyadoo hab online aan ugu geynaa 2023 aan ugu adeegina insha Allah